kulanti wanaagsan daawadayaal halkan waa barteena YouTube-ka ee National TV qodobada wararkeena caawa ugu waaweyn waxaa kamid ah Ra'iisul Wasaare Roble oo laga cabsi qabo in uu beegsado taliye Odowa gudoomiye Cumar Filish iyo taliyaha ciidamada badda xilli uu khilaaf adag kala dhaxeeyo madaxweyne Farmaajo xaaladda magaalada Boosaaso oo caawa degan kadib markii la furay aagagii lagu dagaalamay wararkii ugu dambeeyay xaaladda magaalada Boosaaso iyo dadaalo xal lagu raadinayo oo socda ayaad warkeena ku daawan doontaan qodobada kale ee wararkeena ku jira waxaa kamid ah midowga musharaxiinta oo war ka soo saaray shirka uu ku dhawaaqay Ra'iisul Wasaare Roble taageerana u muujiyay haddaba shirka golaha wadatashiga qaran ma ku dhici doonaa waqtiga loo qorsheeyay iyo madaxweyne Farmaajo oo xariga ka jaray xarunta urur goboleedka IGAD ee la socodka cimilada iyo ilaalinta deegaanka qodobadaasi oo dhan ayaan ku faahfaahin doonaa wararkeena waa habeen khamiisa jimca ayaa soo galaysa 23 December sanadka 2021 fadlan daawade haddaad nagu cusub tahay subscribe saar YouTube-keena kadibna furo gambaleelka sidoo kale like saar muuqaalka si uu dad badan u gaaro u diyaar garooba qodobadaasi oo faahfaahsan aan ku bilaabo wararkeena wararka caawa aan ka helayno magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari oo maalmihii u dambeeyay ay ka taagnayd xiisad dagaal oo u dhaxaysa ciidamada BSF iyo kuwa maamulka Puntland ayaa sheegaya in la furay qaar ka mid ah aagagii lagu dagaalamay ciidamadii isku horfadhiyay magaalada Boosaaso ayaa la kala qaaday waxaana la furay qaar ka mid ah aagagii maalmihii u dambeeyay lagu dagaalamayay ayada oo meelaha qaar ee magaalada uu dib u furmay isku socodkii dadweynaha qaarkood ayaa la arkayay ayaga oo tagaya xarunta BSF iyo goobihii lagu dagaalamayay oo isku socodkooda dib loo furay waxayna u muuqataa inay dib ka dhaqan gashay xabajoojintii shalay lagu baaqay wararka ayaa intaas ku sii daray in ciidamada labada dhinac ee ku dagaalsan Boosaaso uu mid walba dhankiisa uu baaritaan ku sameynayo gaadiidka dadweynaha kadib markii ay dib u fureen isku socodka qayb ka mid ah magaalada talaabadan ayaa imaanaysa xilli ay bulshada reer Boosaaso uu waaga ugu bariyay sawaxanka rasaas dhacaysa iyo hubka culus kadib markii xalay saqdi dhexe uu bilowday dagaal aad u culus oo u dhaxeeyay ciidamada Puntland iyo kuwa BSF ee daacadda u ah General Maxamuud Cismaan Diyaano dagaalkaasi ayaa waxa uu iskiisa u istaagay 7 subaxnimo ee saakay xaaladda ayaan ilaa hadda degan labada dhinac ee isku haya gudaha Boosaaso oo dhowr jeer eedeemo isku jeediyay ayaa hadda u muuqda inay si isku mid ah u qaateen baaqi xabajoojinta kadib maalmo dagaal xoogan oo khasaare badan geystay uu ku dhexmaray magaaladaasi shalay ayay ahayd markii wasiirka amniga Puntland uu ku baaqay in xabadda la joojiyo waxaana jiray isimo iyo waxgarad kale oo dhexda u xirtay inay joojiyaan dagaal dambe oo ka dhaca magaalada waxaana mar kale Puntland ay sheegtay in ay wada hadalada nabaddu sii socdaan dhinaca kale madaxweynihii hore ee maamulka Puntland Senator Cabdiraxmaan Maxamuud Farole ayaa si adag uga hadlay xiisadda dagaal ee ka taagan magaalada Boosaaso taasi oo u dhaxaysa ciidamada BSF iyo kuwa Puntland Cabdiraxmaan Farole ayaa sheegay in isimada dhaqanka Puntland ee ku sugan Boosaaso ay qayb ka yihiin colaadda Boosaaso isla markaana ay sii huriyeen kadib qoraalkii ay ka soo saareen dagaalka isimadii qoraalka soo saaray iyaga wax sii fogeeyay ma aysan qaadan doorkii ay lahaayeen waxaad moodaa inay isku qasan yihiin doorka ay leeyihiin isimada iyo doorka dawladda ayuu yiri Senator Cabdiraxmaan Farole sidoo kale waxa uu ku dhaliilay qaabka ay isimada u wajaheen xiisadda dagaal ee ka dhex aloolsan saraakiisha ciidamada BSF iyo maamulka Puntland oo uu hogaamiyo Siciid Deni Farole ayaa si adag uga soo horjeestay in isimada ay door ku yeeshaan arrimaha siyaasadda iyo maamulka maadaama uu ku dooday in doorkooda uu yahay kaliya inay sulux wax ku xaliyaan hadalkan wuxuu imaanayaa xilli ay baaq nabadeed soo jeediyeen siyaasiyiin uu qayb ka yahay Farole iyo siyaasiyiin kale oo ka soo jeeda Puntland sida Cabdiwali Gaas iyo Cumar Cabdirashiid oo shalay kulan ku yeeshay magaalada Nairobi sidoo kale waxay si wadajir ah u sheegeen inay sharci tahay wareegtadii uu madaxweyne Deni xilka uga qaaday agaasimaha BSF maadaama uu xilka yahay meerto sunnaha maamulkana ku dhisan yahay madaxweyne Deni iyo maamulkiisa ayaa waxa ay u soo jeediyeen in xal ka gedisan xabadda uu ku raadiyo dhaqangelinta wareegtadiisa isla markaana hab nabadeed loo wajaho sidii loo dhameen lahaa xiisadda dagaal ee ka taagan Boosaaso waa hagaag qaybaha hore ee wararkeena ayaa daawanaysaan
saacadii la soo dhaafay waxaa soo baxayay guux weyn oo ku saabsan isjiidjiid mar kale soo cusboonaaday oo ku aadan khilaafka madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Roble. inkastoo wax walba isbedeli karaan saacadaha u dambeeya, haddana sida la dareemayo khilaafka ayaa u sii muuqda mid shacbixiisa banaanka yimid. waxaan la ogeyn khilaafka cusub halka uu ku sii biyo shuban karo, iyadoo dad badan ay rumaysan yihiin in mas'uuliyiin hadda xilal haya xilka qaadis ay wajihi karaan. hadalhaynta soo baxaysa waxaa ka mid ah in ay xilalkooda weyn karaan gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Cumar Filish, taliyaha ciidanka xooga dalka General Odoba Yusuf Raage iyo taliyaha ciidamada badda General Cabdixamiid Maxamed Dirir. warar suuqa la soo geliyay baraha bulshadana lagu faafiyay ayaa jirtay taasi oo tilmaamaysay in ra'iisul wasaare Roble uu diyaarsaday shakhsiyaad bedel u noqon kara mas'uuliyiinta uu u maleegayo xilka qaadista. taliyaha ciidanka xooga dalka ayaa macquul ah in loo magacaabo General Maxamuud Koronto ama sarkaal kale oo militariga Soomaaliya ka tirsan haddii aysan wax isbedelin. awood maquulin ayaa bilaabanaysa oo mucaaradka uu doonayo in madaxweyne Farmaajo ku afqabto si yoolkiisa u hirgeliyo, taasi oo ah muddo kororsiga markaasi uu samaystay sida xogo hoose la helay ay sheegayaan. qaybihii ugu dambeeyay ee wararkeena ayaan soo gaarnay. golaha midowga murashaxiinta mucaaradka ayaa si weyn u soo dhaweeyay qabashada shirka golaha wadatashiga qaran ee 27 bishan ka dhacaya magaalada Muqdisho, isla markaana uu iclaamiyay ra'iisul wasaare Roble. musharaxiinta mucaaradka ayaa shaaca ka qaaday inay bogaadinayaan dadaalka ra'iisul wasaaraha ay ku aadan xal u helista muranka hareeyay doorashooyinka. sidoo kale waxa ay tilmaameen in rajo weyn ay ka qabaan in si wadajir ah looga gudbo caqabadaha ku gadaaman doorashooyinka dalka. qoraalkan ayaa waxaa ka horeeyay mid kale oo ay soo saartay beesha caalamka, kaasi oo isna lagu taageeray shirka ay leeyihiin xubnaha golaha wadatashiga qaran. saaxiibada beesha caalamka ayaa ugu baaqay hogaamiyaasha Soomaalida inay xal rasmi ah ka gaaraan khilaafka doorashada si ay u noqoto mid lagu wada qanacsan yahay. madaxweynaha dowladda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo uu heliyo xogayaha guud ee urur goboleedka IGAD ayaa magaalada Muqdisho xariga kaga jaray xarunta urur goboleedka IGAD ee la socodka cimilada iyo ilaalinta deegaanka. madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya oo khudbad ka jeediyay munaasabadda ayaa soo bandhigay muhiimadda ay xaruntani u leedahay guud ahaan dalalka geeska, gaar ahaan Soomaaliya oo martigelinaysa xaruntan heer gobol, isaga oo tilmaamay in isbeddelka cimiladu uu gobolka ku yahay caqabad ay tahay in la iska kaashado. xaruntani waxa ay muhiimad weyn u leedahay guud ahaan gobolkeena oo ay ka caawin doonto hirgelinta qorshayaasha isbeddelka cimilada ee IGAD, midowga Afrika iyo heshiiska caalamiga ah ee Paris. waxayna ku soo beegantay xilli ay gobolku ka jiraan dhibaatooyin ka dhashay isbeddelka cimilada ee abaaraha, fatahaadaha iyo nabadguurka. xogayaha guud ee urur goboleedka IGAD ayaa uga mahadceliyay dowladda federaalka Soomaaliya martigelinta xaruntan, isaga oo sheegay in ay wax weyn ka tari doonto wax ka qabashada dhibaatooyinka ka dhashay isbeddelka cimilada. xaruntan cusub ee IGAD ayaa ka shaqayn doonta la socodka iyo wax ka qabashada isbeddelada cimilada iyo ilaalinta badqabka deegaanka ee dalalka IGAD, iyada oo diiradda saari doonta ururinta macluumaadka, cilmi baarista iyo soo saaridda warbixinada ku aadan dhibaatooyinka ka dhasha isbeddelka cimilada, odorosida iyo ka jawaabidda musiibooyinka dabiiciga. munaasabadda waxaa ka qayb galay wasiirada wasaaradaha qaybta ka ah xaruntani oo ay ka mid yihiin wasiirka maaliyadda Cabdiraxmaan Ducaale Beyle, qorsheynta qaranka Jamaal Maxamed Xasan, xanaanada xoolaha Maxamed Aadan Macalim iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha Xaamud Cali Xasan. waagaag daawadayaal, halkaasi ayaan ku soo gabagabeynayaa warkii aad ka daawanayseen bartan YouTube-ka ee National TV. waad ku mahadsantihiin daawashada iyo la socodka wararkeenna. intaan ku kulmeyno wararkeenna dambe, nabadgelyo.